قال مدحدنا مقدشو مقدشو وامور يدان كتب مقامي وياه وحن تري دونا لين عفنك هي فنك بعد باتك تعينت دبات هي انت ميل بالاسلام مري oo sadursi aan ku sheegay wax qaybsi wax walba lagu kala tagay ayaa imka heesihi ba la isku cadlay ayaa la isku cadlay haye beeshii dhaxay doonaysa inay dhoofto ay baadna waxay ku leedahay beeshii dhaxan wayna heestaa kaligeed dhoofkii wala iskala yibi haye beeshii dhaxan ba heesisa imka war ajaayib sanaa geeska xidiyaha geeska ay ba waxay ka saareen dad markaan eegay isku hayb ah meel ka soo jeedo boor ma ka soo jeeda haye yurubgeeyaan ka saarnay haye nicmaan hilaac baan ka saarnay haye furin laan ka saarnay haye hanad baan ka saarnay saddexayaan waqti hodan hebel hodan cabdiraxmaan baan ka saarnay marka way ma beel baan dhigeysanay kaliya yaa beel dhiga u furi kara horta waxaan eegaynaa yurubgeeyo inuu wax tagtay muqdisho haye fanaanada hargeysa 2 sanadood ayaan ku saxan weyn 2 sanadood حيسيسكه هي يعد معاني عدكي معانا يرجعي كسر دوالا عدكي معانا وهرجيسه الله نبيتك ويصون نقطة قبل دي كل كانوا كشعلان هي فن كذي والله قبل ما قبل عندنا عم بنو ولا سكون راعي يمكن بعد الليل ورقاد بعد حنطة هذا يسميه حور بيتك حور ولا مسعود حمارة حور ذات وعد مركا والله هيست قرافتي يرجعيو ay loogu diiday in xidigaha ka simid noqoto ama hargeysa ay ku soo noqoto aan raade bal horta in yara ka dhageysano muqdisho ayaa heesta dhamaada qala madaxdina muqdisho muqdisho wa murayada ka tag muqami qala madaxdina مقدشو مقدشو وامور يدان كتب مقامي ما شاء الله ما شاء الله وما جيرتها ملع سيقا قروح لذا قروح لذا ملع سيقا قروح لذا ما شاء الله ما شاء الله وما جيرتها ملع سيقا قروح لذا قروح لذا ملع سيقا قروح لذا علي الدواء مانتي مقدشة waa maanta يا وخالد بيسويسي خالد بيسويسي بلني وخالد كدستور كنت ماشي كقطع الإيجادنا وقتي وياه هستا قبل أصلا تريسي سما أن نينك هرمود كوا أمريكا كوحدان حديقة جيسك إيمك هسي قبيلة ذي أيون إيجادنا أن نينك مدحتك لعبد الله الله يرضى لعبد الله أيا الله يرضى مركا لعبد الله بقى حنا يروح ليه أنا وهرت السيدة ده بقى waxa dad badani ay igu tilmaamaan inaan ahay cunsuri haye maradu qofka sida u hadlo uu yahay wax uu sheeganay isaga baaba haye aan marka wuxuu waxaan ahay cunsuri haye cunsuri macnaheedu waxa weeye dadka kala soo dhaweeysta ama kala fogeeya kala dila ama kala geeya haye kooxdani buu yiri haddaan runtii sheegay haye runta dad baa wax kala u haysta haye reer Soomaaliland qura iskale haye haye aad wax shooday وطن حشود بدن كريدي waxaan ku siinayaa wuxuu ka xishooday oo ku yar wareeyay beesha dhaxays kala meesha وحرف marka Soomaaliland yurubgeey meel Soomaaliland ahayn xagee ka timi cirka ka timi hodan meel Soomaaliland xagee ka timi mar Soomaaliland tiba si kala baxaysa digaan la iska dhig martada haye ilaahay si bal isla maraya haye kooxdan baan dib u eegayo madaxtooyada laga xukumaaba iyaga laftigooda gabagooda marka eeg
fan madax bannaan maaha kooxda waa fan madaxtooyada iyo xukuumaddu ay gacanta ku hayso oo awaamirtii iyo mabdicii dowladda ku shaqaynaya wax kale ma weheysi karaa marka fankii ayaa isna land ayaa la raaciyey horta laab salax ama laab dilaac whatever he's called horta aan dhageysano hadalkiisa sheego waxa dadka muhmal iyo madow kaga jira xidigaha geesku ciideeyeen anaa idin leeyma qora xidigaha geesku waa reer Soomaaliland laab salax oo inta weyn lahaydeen in maqaan idin leeyahay waxayna aliyo laab dilaac waa balawi marka abwaan kale oo reer awdada ayaa tilmaamaya in rag beesha dhexe ka tirsan oo geeska ku jiray xidigaha inay boqol tirtagan xamar oo aan deero u hordin laga nasaarin bal aynu abwaan qiiq daawanad halkan waxaan kaga jawaabayaa arrin ay yiraahdeen niman fanaaniinta xidigaha geeska ayaa nahay ay lahaayeen ay macnaha maalmahanba mudaba la daba taagnaa oo fanaaniin badan lagu eedeynayay oo ay ka mid yihiin yunus maxamed cabdi nimcaan hillaa iyo hodan cabdiraxmaan oo ay shalay la yidhaahdeen waxaa ka saarnay kooxda runtii kooxdu dawlad mushaar mayna siinaynin sidaa ku abuurnayna waa la ogaa waxaa la hayaana haba yaraatay ma jirto haddii fanaan laga hadlayana annaga ninkii guddoomiyaha noo ahaa ee waxana qabanqaabinayay la hogaamin jiray waa la yaqaanaa cabdirasaaq baa la yidhahdaa aakhiro baa la yidhahdaa waa goan aakhiro waa ninkii ugu horreeyey ee muqdisho tegey maxaa looga hadli waaya maalin quraatay lama soo dhigin xaqiiqada hayaay والله وعدي ورعدي waxaan ka hadlaynaa waa xaqiiq xaqiiq weey haye waaya inanka la ilaahay la oo muqdisho iska tagay ayaa hadii ilaahay ku reeyahay isaguna hees buu tiri uu leeyahay وني waxa laga fogaado qabyaalada dad walaalaabeenahay meel ma kala tagayno DNA-dan way isku mid waxaan aad aaminsantihiin reer un laga hadlayo iyo qabyaalad meel la ku geen mayso inaga qabiilooyinka oo dhan inaga qabiil qura ah hadana fanaaniin nahay agada fanaan waa qabiil male iyaga isku qabiila marka qabiil gooniya oo ka tirsan qabaa'ilka Soomaalida weeye in marka la iska daayo qabiilada Soomaalidu ay isku sii kala fogaanayso ayaa ilaha boon heesta gunnimo la yiraahdaa gunnimo badiyana aynu iyagu saarna dadweynaha dhalinyarada geesko gacalayaal galad male qabyaaladee waa gubtaan waa cudur gadaafaho guweyn heer laguma gaadheen heer laguma gaadheen waa gunnimo dhalinyarada geesko gacalayaal galad male qabyaaladee waa وريا قبيلة وقرن وي يا قبيلة وقرن قبيلة وقرن سما اوكي مي suurta gali kartaa yaasinow in sheekh burco ka hadlaya wacdigiisa aynu dhageysano mid bay dhaba ka hadlayna aynu daacad iska xidhnaba socon mayso taas ma dhici karto mid dhici karaysa mid boor ma jooga sheekh inaynu dhageysano sheekh kale oo laascaan joogan aynu diidno iyana waa ma dhacdo mid dhici karaysa hees xamar ka baxaysa inaynu dhageysano mid hargeysa ka socotana diidno no way ma dhici karto waaya taas la doonayaa in dadkii lagu khasbo dhibaato marka waxaan barnaamijkeena kaftanku aynu ku waaninaa dhalinyarada Soomaaliya ama fan ha ku jira ama fan ku jirin wax alla wixii xunaan iska qabtaan Mr. Labdillah وين لوسو ودعوة قبيل بريرة أو دميرد وهرسيديو واعب مركز فنك شقينيس أما أد وريك أتاي إن أدوك دتك بهالشي لرهاد ستين ودباتو ولا في عين وين لحد حادي هاي سوق حد ليا وين يهين هو شعيرة هو النبضينا هو أمد السود وينه أنكر فوقيني أوكي يوروبيو أيون إيجنا يوروبيو إذا ميا أباهن هرجيسة بس الريح هرجيسة أيا يوروبيو باه ريح هرجيسة أيا أباهن يوروبيو إيه تدريست كذا يفهم إيه كنول مركا إنا ترى فينا أول بالضيرسين كانوا مبهن هدي فنك اللي تعقلنا
oo dadkii kasban lahaa ay kasban lahaayeen ilaa uu xarisay maxamed saleeman tube ayaa hargeysa joogi lahaa markuu arkay inaan dhig jiraaq loo siinay ayuu xamar iska tegey markaas waxay u bixiyeen boqorka codka ninkii waa ka ordiyaaba ورا حمرت واشنطن حمرت عادي باهي مانديق waa ka daba tagay haye cumar duulaha ka daba tagay wala ka daba habboon abdullaah ka daba tagay haye حمرت waa saaf ducada ka daba tagay soora ba ka daba tagay حمرت wala baahaya ya حمرت wala baahaya ilaa hadda xagaas waqti marka fanku wuxuu raadsadaa stage ballaaran iyo population intaas uu baahay laakiin uma baahna beesha dhexe iyo beelaha darfiyada iyo Somaliland la akhriyo intaas aynu kaga baxaynaa fanka yaa galay markaa dadkii laga saaray fanki markii dadkii laga wada saaray oo dawaatan leeyahay waxa lagu qaybsaday un reer la saaray xidigii geeska reer ayaa u galay reer boorama laga saaray professor Ahmed Ismail Samatar ayoy ayaa galay oo idana hodan iyo bedel kara hilaac iyo waxaan daa kaalsan iyo yurugayay kula reerkii saarteen aniga kula reerkii saarteen ana meesha galiya haye xidigaha geesku intaynaan heestii saarin Ahmed Ismail Samatar ku soo baxayo waxaan sheegaynaa inay yihiin xisbiga afraad ee siyaasadda ee Soomaaliya waa kulmiye waa beri ucid iyo geeska والله حزب عصبة كسر بيرة وحزب سياسي وحزب ما أقول كرنا حزب فنا أوكي أحمد إسماعيل سمتر أي نصار يا هستي سكبنكا وإمك وكو قلي مركين لفن الشيء لأن يردي وأدارك وها بوس كده وقلي إزاي قلي وأنا داون أبو كلون يا كروس كجيلي أبو كلون راعي ورني ونك وعد معي لا حمر وصعون كرا عدو حمر سكوا سكا يقال لكن حمر تيج معي مركب حمر تيج معي فورتين بدون بو باهين حوغا انا قلقلين انت كلا اوكي وي عدكي سافعين عدكي عادي باه ونو ان Shama
horeen waxaan u idhi ها sadbursiga marka laga hadlayo ها gobolada Soomaaliya ama maamuladu waxay leeyihiin beesha dhexe waxa la yiraahdo اي marka inta badan beesha dhexe ee Soomaaliland baa la hadalaya ها beesha dhexe ها sadbursigeedu ها ma aha un wasiirro la badsado iyo xildhibaano la badsado iyo governatorial la badsado iyo waxaas ها waanigi yiri ilaa dhoofka beesha dhexe baa dhoofta معك دفق يا كسكلا ها اي سيناي maskaxdiisu ma keeni karto walba marka dhoofaysid ها layr far badan iyo waxba jiro wala sarkaya media television badan baa la iska daawanaya beerahan kale ee aad tirahdaan way hafraan waqti ay laan Soomaaliland baati ee la hafrayo bal mid iyo laba kaga darso oo New York iyo London iyo hal iska arko hal la yiraahdo niyo muuqaasi wuxuu ka socdaa qofka dambe waa boorime ama waa la saanood hal iska yiraahdo bal iska dar اي 15 baa raacayo 15 ku isbeel شو كسبل ها ورو عجايبي suud wad madow waa gashadaan هي beeshaas هي beeshii dhaxo dhoofaysa ayaa imka xisbiyada mucaaradka ayaaba ka daranba laftigoodu ciro halkan buu yimi هي intaan beesha dhexe Minnesota arag waxa ugu badan oo gacan siinayay oo meel bageynayay oo wadwaday oo hoos orday waxa ahay beeraha darafyada la yiraahdo darafyada waliba special saag bari haas contribution ugu badan halkan iyaga bixiya markuu dhaafay imka waftigii ugu horeeyay London la tago ayaan ku tusi doonaa jay wada beeshii dhexunde wada beeshii dhexe يا درس سؤال لما ما شرط إلا سكعب يستونا سموك يا باشا باشا قال كان سبت ها ما قال لي هذا سؤال لانت إن حتى على هذا سؤال لان يقول اللي دكته يا حتى تصحيح تود أنت تاسل لك هو دل سحفريو سؤال لان إياه اللي قدره إياه قلوين كل الدقة الدقة يا هوشة قبتين على ويا مركا بالبشي اللي حورته أو صفر دير كشت إلى لندن مقعدو دي احنا نسوق بيان عرها ugu horeey عبد الرحمن محمد عبد الله عرها وكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين hadda halka waxaad ku arkaysaan madaxdii xisbiga wadani gudoomiyaha golaha wakiilada ahna murashaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane ama doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo wafdi uu hogaaminayo waxaan jeclaan lahaa inay magacyadooda iyaguna halkaa iga bilaabaan xildhibaan xoog magacaada saddexan cabdiraxmaan maxamed jaamac suldaanka cabdiraxmaan saldini gudoomiyaha isagoo dirasa murashax cabdilaahi cabdi haybe iyo aadan dhowleere saaka waxaanu ku soo kici tirnay 7 subaxnimo international airport waxaa halkana iga maqan أبو سعيد يوم المدى مدحوينها مستقبل إن شاء الله تعالى فردوسة وحن وجدنا هذا وأنا كنت سعنا هيثرو إيربورت وحن كرشينا دمان هاي دمان تاجرياش حسب ودني إن أي سمو يميسان لو قصر قيد جران ماتا أو أي وحن وكسر بيجنا هاي اللحظة يلا 20 دقيقة نيك هذا الله الله يوعى بسود في الجرع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قاعد يدون وتحد كل اسمه قرين ما يصغرين ما اسمه قرين وكان بري هذا يكون بولستان ترتك دور شوينك السمال ها بياخد رفيضه حاجة دمونا اسكت سجار قلنا ديار دي مجد هذيك لما يكون كل يوم هذا اسكت سجار دار كل يوم كله فتح يوم هو اسكت وقت وياه هل كان إنسان الآن waxaan galeynaa siyaasadihii Soomaalida maanta waxaan ka bilaabi doonaa yaasiin ceeri gaabo laftigeed meesha ceeri la yiraahdo dad badan baa dhigta u taagay ceeri gaabo ayaa horta labada xisbiyadan mid isagu ma hadlaba laba xisbi ee dawaaweyn hadli karay ee wadan iyo kulmiye ayaa ishirdiya hadii jeer marka naanaysi isku dhajiyaan wax walba way boonboonayaan kulmiya waxa sameeyay wadani baa waxa sameeyay marka siyaasadda waxa u qaateen intooda badan weey rag badan oo akhyaarin oo ku jiraan wax fahamsan waxay u qaateen midi ku taag Soomaaliya la istaagay ma nin kale ra'iisul wasaaraha maanta telefoon ku hadlay oo xaq inoo wada waxa leeyahay labada xisbi ayaa maanta dad danyar oo masaakiin waxyaabahan aadka waxa kamid ah dad masaakiin oo dumar u badan oo aan qadi quraactoon haysan ayaa inta loo tagay leeyay kaalaya waxba la dinsinaya inna lillahi wadada masaakiin siyaasadda meesha bishaak dad waxba la dinsinaya kaalaya hooyooyin
tabaalaysan oo caruurtooda bariiska u la islaan walba waxa lagu yidhi dadka ehelkaagaa soo kaxayso dadkaagi lacagta iyo raashinku kugu baxo lagu qoro kaar iyo waxna soo qaado mala aqoonsiya kaararkii la ordeen waa la register gareeyey waa la wada sawiray sawiraha laga qaaday soo meesha lacag iyo raashinkoona lagu qaybin maayee balaaya ka socota kale mudaharaad ka dhan ah xisbiga wadani ayaa la qabanqaabinaya waxa qabanqaabinaya xisbigii kulmiye marka kaalay ku mudaharaada wadani hadday yidhahdaan dan yartan baa wada wadanaya dee oo diidaysa ma ogola marka xoogay kale oo iyagu dee mudaharaadka usoo diyaar garooba dumara bay meeshii keeneen markii ilyartu isqabatay anba sidii ku afufeen haddaba oo yidhaaheen mudaharaadkii bilaab haddaba waa xisbiga wadani ha dhaco kulmiyanta marka dadkii dee waa la hafiyey wixii dan yarta oo dhan nambarkii baa lagu buuxsaday dadkaas sawiraa laga qaaday idea laga qaaday waa la soo lugooyey hungurigaa laga soo riday dabeetana bus iyo bood ayaa lagu bilaabay iyo wadani ha dhacdo iyo wadani wax jira maaha iyo kulmiyaa wax ah waa la siyaasadey dumarkii unbaa mar damba miyirsaday war aawi da lacagta lacag ma jirta baxun baa lagu yidhi raashinka aawi ma jira baxa ruux baa ka dhacay meeshaas safrad bay ku yimaadeen bal iyagii oo hadlaya oo afkoodii ku hadlaya oo weliba bara saabka gobolka ayaa hawlaha ka dambeeya qaarna ilayhin muuse bixi baa ka dambeeya oo hargeysa jooga bal aynu daawan mawduuca dadkan lagu soo kiciyey iyagoo dadkaasi arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sidan waxaanu nahay xaafadan yara waxaa noo yimid dad soconaya waxay nagu yidhaahdeen kaadharhkiinni iyo kurkiinnii keenaya sawiradiinni magacyadiinni haddaannu dhiibnay isbuucii kadib waxay nagu yidhaahdeen kaalaya meel baa lacag laydinka siinaya haddaannu tagnay waxaannu u tagnay siyaasad waxaannu u tagnay dad cay iyo canjarafo wada waxaannu u tagnay dadna leh dareera danteedii waa fishanay kaadharhkiina waa nala ka xiraystay oo waa nala ka qaaday waa nala ka siiyo waa ka doonaynaaye dadka lugooyada iyo noo geystay ceebta iyo annaga sawirka aanaan waxba u cunin علي تاني تاني مالك سوى جالس أنت مارتا تن ولا سكودية next time dadka haddii loo keeno deeq gargaar gargaara oo la kaale raashin baa la siinaya iman maayaan dacay kay maraya oo yabiyi dadkii tiiba dooqa khiyaamad buu qadan wixii buu qadanaya qofka la khiyaameeyo marka dhab loogu yeero wuxuu haystaa in wali khiyaamay khiyaam ku jirto hawsha kulmiye ayaa iyana warbixinteeda aan ka dhiiban doono haye waayahay mahuranka geeyigana muqdisho 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 mama casata malabkiyo caanaheeda caanaheeda mama casata mahuranka geeyigana muqdisho 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 mama casata malabkiyo caanaheeda caanaheeda mama casata maka hesha malaayigiyo qudradeeda mooskiyo cambeheeda maka hesha malaayigiyo qudradeeda mooskiyo cambeheeda lascanod haye wasiirka arrimaha gudaha master fartol iyo wafdi hogaaminayo ayaa lascanod bay tageen waxay doonayaan in beesha sooriysinaya cayn ku abtirsata ay ka dhaadhiciyaan in somaliland la midoobo la walaaloobo la shaqaysto
gacmaha la isqabsado haye okay inuu mabda amana diidanin mana ogolin laakiin waxa meesha ku jira inoo yidhi haye odaygii ha waa fartal wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdigii la socday ha qabyaaladun bayna u abtirsadaan wuxuu ku leeyahay fartal war inagu beesha weyn ee Soomaaliya waxba nigama degine reer yar aynu gooni hawle heshiiyaan Soomaaliland haye reerka waxa la yiraahdaa Maxamuud Garaad marka ninkii loo diray in beesha dhulbahante ay la midoobaan Soomaaliland ayuu baa isla beesha dhulbahante ma hawle badan yihiin qayb yada kugu balaa koox yar gooni wuxuu la shiray markaa kooxda la yiraahdo qolada la yiraahdo Maxamuud Garaad buad dabeetana meeshii baa laga hadlaya waxa leeyahay anagu haddaan reerkaan nahay waxaanu la jaalnahay waan la siyaasadnahay dawladda Soomaaliland marka odayga intaas ugu dhintay odayga beesha ballaaran loo diray iyo buu ka soo goostay marka inuu hawl qabto isoo haysta horta iyagoo hadlaya arrinta aysan dadka u fahamsino aynu dhageysano wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Professor Hussein Xaaji Maxamuud Faratoon oo weeliyaan wasiirka kheyraadka biyaha ayaa kulan ballaaran maanta la qaatay cuqaasha waxgaradka Maxamuud Garaad kulankan oo laga akhriyay warmurtiyeed lagu dardargelinayo heshiisyada Maxamuud Garaad iyo xukuumadda ayaa waxa laga soo saaray qodobadan waxa ka soo baxay shirka qodobadan beesha Maxamuud Garaad waxay ku ama daawan koox yar buu la dhuntay ya waya waxaynu eegaynaa markaa nin kale oo la yiraahdo Siciid Xaaji oo xildhibaanka ah Soomaaliland oo Sool ka soo jeeda ayaa hadlay isaguna ayay war waxan wasiirku ku meereysanayo iyo wax laf u kala saar reerka maaha wax maartay la qaadan karo bal sida daawasho wanaagsan anigoo aad iyo aad uga xun waxaan doonayaa halkan inaan baaq uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi baa loo diray xukuumadda baa tegey gobolka Sool degmada Laascaanood halkii ay ka ahayd dadka inay isu soo dhaweeyaan wafdi waliba wasiiro waaweyn oo wasiiradii deegaanka hogaaminayaan oo niman xildhibaan ah oo meesha ku noqon jiray ay la socdaan halkii ay ka ahayd inay dadka isu soo dhaweeyaan wafdigaasi gobolkii wuxuu ka abuuray wafdiga wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayay maanta jooga gobolkii wuxuu ka abuuray tafaraaruq iyo in qaab qabali ah loo kala fadhiisto kana hal diru leeyahay ya waa la diro leeyahay wasiirkii meel isku soo xiray markii ballaadna oo dhan ka yimi ayuu ka tagay moogtay iyadana intaa ayaynu ku dhaafi doonaa waxaan eegi doonaa gadood ciidamo mushahar la siin waayay ayaa ka dhacay Garowe oo control bay qabsadeen berdhow oo maqshay ilaa 2 jeer tukaraq meesha la yiraahdo ciidamadii Puntland u joogay ayaa maanta iyana la wareegay waxay yiraahdeen 5 bilood mushahar ma siin okay waa laba oo Puntland Muqdisho ka dhacday iyaduna ciidamo qabsaday meelo oo leh gadood baan sameeyno nalma siin mushaharkoodii marka waxa weeye waa maxay sababtu arrimahaas oo mushaharooyinkaas oo iska jirjira ayaa hadana waxa jirta dab kale oo hoosta kaga shidan oo keenaya in waxaas ay ka caanaysan marka aqliga silmiga laga shaqaysiyo waxa weeye madaxweynaha hore Puntland Faroole iyo madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh labadaas horta waddanka ka dhoofin mooyaane xamarna ma deegi karto Garowe ma deegi karto labadana la bisaafuriyo labadana ka baxan weeye inkastoo Xasan Sheekh iminka uu ka baxay shalay mise daraad oo Turkiga aaday oo qalcadii uu ka dhistay guriga uu ka dhistay Turkiga oo abaar ku soo noqonayo laakiin iskama tagine inta xogaa si turtuuray ayuu dhoof wixii baa sii marka eeg Afrika madaxweynayaasheedu marka ay xilka ka digaan waa iska tagaan balaqad waliba kuwa Soomaalidu hadii uu gobolkiisa intuu madaxweyne ka dawo gobolkiisa fadhiisto wax badan baa soo baxaya saameyn buu ku yeelanayaa dhinaca siyaasadda marka wax wanaagsan in madaxweyne hadii uu ka dawo xilka uu iska dhoofo iska tago meeshii uu tagi karaba inuu tago Faroole wuxuu fadhiyaa Garowe inta badan xasan Muqdisho fadhiyaa
عركي حنيها الله يساستا عبدنا حاجة طول عمر غلعان كرو وكا انت يرد انكو قروا فريسي فرولة وكا ديار دي ساي فريسان على هاي نيك الله يرحم عبدولي عركي ساقولي مربى تلفون بصدري ودي متجن سوي شوها ما يوشوها دبي يكونوا قاعدة نيك الله يرحم فرماتنا وكا إلى وسيرة بودي سكر راي إمك حاسس سمو تجن ويقدم الله يبين وكير قرتي حوله ويمكن قرتي المقيمة marka labada dhibaatada keeni karaysa in wadanku xasiloon waayo waxa weeye waa in ragii hore xilka soo qabtay ay ka yar dustaan ay faraaqo siiyaan bal kuwa kale iyaguna ka yar baxdo ay ka baxdo waxa gudi maamulada Soomaalida Somaliland ku dar Puntland Jubaland Baydhabo Jowhar dhamaantood caasimadooda xarumo leeyeen caasimadda la yiraahdo waxay ilaabeen caasimadda labaad caasimada labaad ma jiraan ma garanayaan caasimada labaad ma yaqaano baydhabo caasimada labaad waa hadii la wada garanayno iyagan garaneen xasan shariif aan garaneen abdul hadii la wadiyo la yiraahdo Puntland waa tuma caasimada labaad ma sheeg karayo waxaan soo qaadana Hargeysa waa caasimada Somaliland dawladdu waxay leedahay caasimada labaad waa Boorame qodob kale dawladdu waxay leedahay caasimada labaad waa Burco bal daawasho wanaagsan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Cismaan Cabdullaahi Zaxardiid Cadaani ayaa madal uu ku sugan yahay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaaniyo waxa uu kaga dhawaaqay in caasimadda labaad ee Somaliland tahay magaalada madaxda gobolka Togdheer oo isagu dhalasho ahaan ka soo jeedo wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa madaxweyne sida magaalada joogna waa magaalada madaxda labaad ee jamhuuriyadda Somaliland waana magaalo iyo gobol taariikhda jamhuuriyadda Somaliland maxaan ku raahdaa caan runtii ku ah ku darso wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta Somaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuze ayaa isaguna waxa uu ka sheegay in caasimadda labaad ee Somaliland tahay magaalada madaxda gobolka Awdal madal ay ku sugan tahay murwada qaranka Somaliland Aamina Waris Sheekh Maxamuud Jirde ganacsato culimo diin siyaasiyiin iyo aqooniyaan dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda magaalada Boorama iyadoo ah xarunta gobolka Awdal aad ugu faraxsanahay magaalada Boorame oo kulliba magaalo marka aad timaadaan ku cala garanaynin ee farxad lagala kulmo noqoto magaalo madaxda labaad waa haween تعالي تروا ولي وبورمي ما كيوي أنا هو كورر سر إما كنت تضرب بوها يستا من الصورة قبل كان يراه إن من يابلس ينشون إن عاصمة ما هذا السيمبول بقى سومالو اللي بحكي خلدين ما هو بنت التليفون خصوصا تروح كلين عاصمة من الصوت مبيت شوف تعالوا من يابلس ما السيمبول ما اللي رابع عاصمة إما كمركا قاربا برعقر مركا برعتها كان حلو عاصمة اللبات عرقا مركا كان حلو عاصمة اللبات وكفيس وكفيس وي وسيرة كفيس وسيرة كفيس وحنت بدنا فرماتش iyo khayr haye ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya maxay u soo dhisi laayeen dawladii haye iyadoo waliba uu mas'uuliyadda qaadayo ra'iisul wasaaruhu waa labanna isla shaqeynay dhalinyara waa kii farmaajo kii waa niman wada shaqeyn karno waa niman isla keenin karno waa kii degdeg u magacaabay ee degdeg loo approve gareeyay laakiin degdeg wasiiradu ma keenin wasiiradu wuxuu keen laayay degdeg waa joojiyay wuxuu keen laayay number 1 haye waxay raali gelinayaan odayaal marba inta liis raali gelin soo qaatan baleeyin inuu hayay inuu reer hebel baan ku yareynay balka waran kuwa soo inagu qaylinaya warkada ka saar may ku dar ma had u kaadi odayga hebel lagu yeed ayaa lagu jira marka murankaas ayaa keena in hadallo duldul laga maqlo oo Facebook lagu soo qoro iyo social media wasiir hebel gaashaandhiga wasiir hebel arrimaha dibadda wasiir dibadda Facebook bay arkaan wariya oo qola soo qortay in la sar kuwan kuwa kala cusub wadaba koodayaal Facebook wareeriye ya wadayaalii Facebook wariya dood iska wadanyarade waa laba nin oo iska ciyaaraya meeshii ya ilaa hadda ciyaar ku jira laba nin oo iska ciyaaraya ayaa meeshii tan labaad arbacooyinka ay dawladdan ka faashataa waxay awood saarayaan in maalin arbaca ay keenaan wasiirada haye marka arbacada markii la waayaan arbacada kale sugaan ta kale sugaan deed todoba cisho kala qaadan madaxweynuhu waxa la doortay
أربعة waxa isaguna doortay ra'iisul wasaaraha arbaca wuxuu safarkiisii u horeeyay Sacuudi ku tagay arbaca ra'iisul wasaarihi baa la approve gareeyay arbaca golihii wasiirada wana arbaca ku beegay marka arbacada dhaafto arbacada dambe wana arbacada dambe sida u faashada ma ku sheegay dawladani qabla madaxweynaha aan raahdo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari waxa la doortay bishii January Jawaari iyo January xaga afka marka laga hadlayo codka isku yar dhaweeyay January iyo Jawaari madaxweynihii ayaa waxa la yiraahdaa naanistiisa farmaajo waxa la doortay February farmaajadaasna way isku yar dhaweeyay dabeetana ra'iisul wasaarihi baa la doortay March baa la approve gareeyay markii la approve gareeyay magaciisa weyn March u yar dhawaada uu dhawaan waay Xasan iyo Ali iyo Khayr iyo badbu garay marka faalkii baan garoo waxaan dhigay faalkii halkii ugu dambeysay uu ka kharimay shoo waa sax bay ku sax ma kharimin inagu baa moodnay ninka reerkiisa ra'iisul wasaaraha iyo bish ayaa ismaaj gareynay Mars iyo mursada إكسات وصحده. والله صحوي. إمتى هالكاس كراعي. إمتى وسير إيجي. هالكاس يسير هل كان هالكاس ككينه. مركز الدولة دي. ولي ودو تنسا. وحي لا تشنسا أضيال وحنا الله بهنا. إن لبنا ورد نرى ويانا. أنت بسيل كوكر جويا. إن هر لورا. مركز لقوم المرسولين دي أبار بيناتمي. أبار تكوي دي إلهي كسكوي نجا صار لها. والدولة دي اللي دارن لها. هذا سكف الدولة تراهيد أبار باكرته. وحلي صمدكم أمالها. أنا كياب رير مدوجو أنا كياب رير مدوج هاي وحصل ووراني أنا داستري دوا كل ما نسى سفرش هاي أن سومالي جودهن وحوي وانا نري وين الحناشو مركز حيل كده عند عدوفان وحن تصاو كوسينيا لما يلو يريرو سديد يستقال كده تري أيا أربي راعي تري ياسين هو يدود أيا فوشي ورمي هي ويدل ويدي هي معلوم بوسودين هاي مدرسة مايا ويا هاي مدرسة مايا لانتي تعبان وي والرفنسة ما أنتي دمبي كي حوار هنا أيا أرجع راعي هي كي كلو أقولي ما أسكور الرية أي مسانتو مش هي فضل إلى مركز بكومش within 5 minutes أي بدش هي دكتور كي أركو أركي إن إسلامتي علمي بقى بدبادين أي أرضي وحسنوا بشارة والله هي أرجع بوتي هي وحول والله بشارة بالخير هو يا أم الشيء هي ويل بعدش هي دكتور يركي واس بس كأجي هي وحول والله محل مروري سنتي هو يودي شان كوري وسكامس هي وحول ورني السعودية أوي شري مركان كورا إسلام تو فلان سوى دل الله هي مركان ده شيء حد يفرح ويدي هي مركان سؤال بودي حولي وحق ويدي قضية عابة ما تشوي جوري هي مركان سوي حد يفرح بقى هي مركان سوي دمحان كفرح هذا مرة دي قضية تشوفه ده فرحة مجرتي فرحة مجرتي سو هذا بروك علني هذي هوش وهالكيو هوش وهالكيدي مركان فرو يحسن شيء وسيد النوم كاسوك وحليه محمد الصومال ما استاجتها ما تشوفين محمد وهالكيدو هالكيدو خلص شغلتي هذه وسيدودي أن قضب كله أيين أقول دونا وحدثك وين قرب شفته ويلك دباتوين هالكن كوا وين هايسته لما بوينت بانك سقالنا ويكسر لوجيا لما داسود دوين إنا لله هي وين ويقعد مايا كل يلا تنحبوا ذي وكشرة sometimes إنا لله هي نبى لو دي بيا فرمشي بلو سو دي بيا أدرس كلو سقوري الباهم بوكس قرايا قبس الدوده قبس الدوده وكنولين waxay kala ku nooliyeen sida iska raaciyeen waraaqaha boostada ee boost loo geliyo guriga xagga hoos ay maagu faano 7 warqadood 15 wax soo ururay xayisiis buu baday marka wuxuu iska dhaadhicinaya in dawladda la soo hadasho 7 warqadood ay u soo direen